waa duulimaadkii shanaad ee safaaradda Soomaaliya ee dalkan Uganda ay gacan weyn ka geysatay in dib lagu celiyo dalkii hooyo muwaadiniin Soomaaliyeed oo muddo dhowr bilood dalkan Uganda ku xanibnaa saameynta cudurka halista badan ee COVID-19 dartii. Tirada dadka maanta ka dhoofay garoonka caalamiga Entebbe oo gaarayay 152 qof ayaa wax iskugu jireen arday wax ka baranaysay jaamacadaha kala duwan ee dalkan Uganda, dad deegaan ku ahaa Uganda iyo waliba dad iyagoo safar ahaa duulimaadyada caalamka ka xirmeen. Qaar ka mid ah muwaadiniintii maanta ka dhoofay garoonka caalamiga Entebbe oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin maanta inay dib ugu laabtaan dalkii hooyo, iyagoona u mahadceliyay safaaradda. alxamdulilah saaki waxaan u laabanaynaa dalkeeni. runtii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan intii ka soo shaqeysay laabashadii markaasi iyo maaragtay COVID-19 gaabkii ugu galay dalkan Uganda. waxaan leenahay waa mahadsantihiin. sidoo kale dawladda Soomaaliya u mahadcelinaynaa iyo safaaradda Soomaaliya oo ka shaqeysay arrinkan laabashada ah. marka alxamdulilah waxaan ahaan arday ka tirsaneed ardaydii master degree ka diyaarinaysay dalkan Uganda. bismillahir rahmaanir rahiim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. anoo istaahilta raaxa oo inaan soo hooyo Soomaaliyeed oo waddankaygii hooyo inaan ku noqonaya safaaradda Soomaaliya oo meeshan joogto oo noo caawisay baan mahadcelinayaa ay wiilasheeda. magacaygu waa Dr. Cabdullaahi Maxamed Cismaan oo ka mid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ee maanta waddankooda dib loogu celinayo Soomaaliya. waxaan ku faraxsanahay maanta inaan ka mid noqdo dadka dib u laabanayo. waxaana mahadda iskale Ilaahay subxaanahu wa tacaala. kadibna waxaan u mahadcelinaynaa safaaradda Soomaaliyeed ee Uganda oo noo tasiilaadkii iyo noo fududaysayna maanta si fudud aan dib ugu laabano. marka alxamdulilah ilaahay mahad iskale. magacaygu waa Cabduqaadir Xasan Barqadle ka mid ah ardayda wax ku diyaariyo ee wax ka barta dalka Uganda. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta muddo dheer ee aan xayirnaynay safaaradda Soomaalida inay noo fududaysay inaan dalkii dib ugu laabano maadaama uu dheeraaday waqtigii waxbarashadiina ay istaagtay. marka way ku mahadsan yihiin telefishinka iyo safaaradda Soomaalida sida wanaagsan ay Soomaalida iyo dadka ay u garab istaageen xilli adag. waa duulimaadkii shanaad ee safaaradda Soomaaliya ee dalkan Uganda ay u fududeysaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee halkan ku xayirnaa muddo ku dhow 3 bil. safaaradda Soomaaliya ee dalkan Uganda oo mar walba u taagan in ay garabtiiso ama gacan weyn ay ka geysato muwaadiniinta halkan ku nool ayaa diyaar u ah wax walba ay u baahan yihiin inay u qabato. Yusuf Maxamed Cali Kashmiir, raadiyaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed, gudaha garoonka caalamiga Entebbe, Uganda.